والسلام عليكم صاحبي سو دوادا meeshan ku yaabnay baa joogdaa baroodigi waa kana inta maanu baxa misaminta maanu baxa ay sheeka ka dhacda adiga champion man aada Premier League man aada niki dadkii Arsenal ah oo galabta dhibcaha la yiri dhibcaha saddex dhibcood ah laga reebay maanta Aston Villa ku kala baxday war waxaan kale to ka sheekaysan doonaa natiijooyinka ka soo baxay kulamadii laga dheelay Awa Martinez Aston Villa portierigeeda oo ku dhagay nimankii Arsenal ha waxa kale intuu eegi doonaa natiijooyinka kulamadii ka soo baxay ninkii Harry Kane ha waa karkar sanadkan karkar waay 70 kulana la ciyaaray 72 kulana la ciyaaray 78 gooda la dhaliyay karkar waay war maxaa Barcelona caawa ciyaal bay ku soo wada bilowday shaxdeeda war wax qodobadaas oo dhan baa fiirin doonaa iyo ninkii Endrigo isaga ordaya kooxdii Real Madrid ahayd iyo keedkeedii waxa la yiraahdo World Cup-ka nasiimada waa la bedelayaa macnaha ama half-time-ka markuu dhaco nasiimada waa la bedelayaa dadkii Madrid ahaana FIFA-dii garsoorkii iyo waliba maamulkii Spain alaga guuleystay war qodobadaas ka sheekaysan doonaa soo dhawaada saaxiibayaal hadii aad tahay saaxiib hore noo la joogay aad iyo aad baa u mahadsan tahay like shirt noogu dadaal hadii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe ka noo saar way soo dhawaada saaxiibayaal kulamaha horti la dheelay oo Premier League Tottenham waa badisay 2 gool iyo waxbay ku badisay oo Brentford bay ka badisay nimankii Chelsea ahara waa lagu dhagay barbaro eber iyaga laga dhaliyay samanyo waa laga diiday offside la yirmo iyaga laftirkooda ba laga badin gaaray Man City bis way hadda Man City 2 dhibcood ay hoggaan ku soo jirtaa 2 dhibcood ay hoggaan ku soo jirtaa kooxda Manchester City ahayd oo hoggaankii waxa waaye waa loo soo kadib markay 3 gool iyo waxba ku garaacday kooxdii dhibka badneed ee Sunderland waa iska aamusanaya bay tiri Bayern ninkii Harry Kane ha galabto intuu soo galay 3 leel la dhaliyay 60 iyo xogaa 60 la soo galay 66 waxaba la bilaabay goolasha 3 leey ka kacay waa ka wada sheekaysan doonaa sida ay markaas tahay nimankii Arsenal waxa la dhahay Maroodiga fig fiican buu ku fariistay walaha laakiin Maroodiga Victi waa ka soo dagay meel kale u imaaday wala jabi rabtaa baasha galabta waxaan ku yiri 2 gool iyo gool baa lagu garaacay dadkii Aston Villa aha baa ku garaacay waya kuwaas kulamadii la dheelay waa Harry Kane sanadkan karkar waay wuxuu sameeyay hat-trick oo martaqaanay inaba aan caadi ahayn isagoo bedel ku soo galay uu hat-trick sameeyay waxa lagu leeyahay 20 iyo 2 kulan oo markaas dheelayo 28 gool aba la dhaliyay ninkan 60 ka la soo galay 66 waa la bilaabay 88 waa lagu soo afjaray markaas hat-trickii baa lagu soo afjaray markaana waxa sidoo kale inta lagu leeyahay ninkan waxa lagu leeyahayba intuu Bundesliga imaaday 79 gool uu dhaliyay 76 kulan oo la ciyaaray taas macnaheedu waxa waaye shaqadii uu Erling Haaland ka hayay Bundesliga waagi hore oo ku wadaaba Bundesliga dareer waayba gool dhalinteeda maxay tahay laakiin Bundesliga waa fudeed buu waayba danka kale to Arsenal galabta wala dilay oo ogtahay Aston Villa macan Unai Emery waxa lagu leeyahay shantii kulan ee ugu horeysay oo kooxda Aston Villa ay dhashay kaalimaha hoose ku jirtay laakiin 6 kulan ee ugu dambeysay hadda ay ciyaartay waxay ku jirtaa kaalinta markaas saddexaad ee kala sareynta ay hadda joogtaa 30 dhibcood ay leedahay waxa lagu leeyahay shantii kulan ee ugu dambeysay marnaba lagama badinin waa 5 gool oo consecutive ay markaas maraysaa kooxda Aston Villa galabtaan ugu dambeysay oo top of the table baa la dilay dhanka kale labadan qofna waa garanaysaan waa Sergio Busquets iyo Sergio Roberto labadooduba maxay sanadkan ay u yihiin ama kulankan caawa ay ciyaarayaanba oo 4 saac ay bar soo galayaba waqti yar kadib soo galayaba waxay u tahay kulankii ugu dambeeyay waayahooda ay u ciyaarayaan kubadda cagta waayahooda markii ugu dambeysay oo ay kubadda cagta ciyaarayaan bay tahay marka macnaha nimankan waa ka fariisan rabaan kubadda cagta waana soo gunaanada rabaan Lionel Messi caawa saacidayaan wixii ka dambeeyana waxay noqonayaan kuwa ka fariista kubadda cagta mar kale Liverpool baa caawa ciyaar rabta oo waqti yar kadib soo galaysa hadartaanba ku jirta laakiin ninkii Mohamed Salah markii saddexaad oo xiriira waxa lagu soo bilaabay kaydka markaan waxa macnaha meesha ka socaysa Mohamed Salah la'aan waa inaan baranaa slot ninkii Salah kurkuur ayuu ku wadaa waa soo gunaanadayna kabtii karinta ka dhigaynaa Olympic Lyon iyaduna waxay doonatay ninkii Endrigaha waxay tiri meeshana ku ooynaysid ma ahe ina keenniyo anaga ku wadayne Olympic Lyon waxay rabtaa ninkii Endrigaha weeraryahanka Brazilianka 19 sano jirka inay meesha ka kaxayso oo ay markaasi ama ku qaadato bisha koowaad ee sanadka cusub oo ay markaasi ka dhigto ciyaaryahan markaasi ka baxa meesha
كلها بدي أرسنال هذا أطلع كلها توب أوف ذا تيبل وهذا أطلع أنت ما نبحها مثلا أنت معناها جامبيون ليج ما إلاليا مس بريمير ليج إلاليا ماشي أسيكو جرتا haddii aan wararka kale intana fiirino kooxdii kubadda cagta Real Madrid warweyna ka soo yeeray Javier Tebas iyo waliba xirtiisa waa laga adkaaday dacwadii ay soo ogtay kooxda Real Madrid ugu dambeyntii iyada ayaa ku guuleysatay qodobka labaad ee dheeraadka ay la liigaha lagu daray sanadii 15 ayaa markaas cusleynaya arinka oo ka dhigaya mid ay kooxda Real Madrid ay ku guuleysatay waxaana leeyahay lacag 88 milyan ay ba ka rabtaabo والريال مدريد دي 88 مليون ولا لا دودا waxa lagu leeyahay macnaha sanadii 15 kii baan afaara qabiileyseen arsaana yeesheen gadaal aan oo dhigteen adigoo dacwadii way ku guuleysatay waxaana la leeyahay maxkamaddu 80 iyo aan dhahay 88 milyan oo euro oo ganaaxa ayaa markaasi la dul saaray oo leeyahayba kooxda Real Madrid seeya dhanka kale tan FIFA adduunkii oo dhan ay qasuusaa FIFA adduunka oo dhan ay qasaysaa hadartan maxaa la leeyahay mataqana waxa la leeyahay World Cup kan hadda bilaabanaya June iyo July bilaabanaya waxa la badinayaa inta la nasanayo macnaha inta la nasanayo hadar 15 baa la nastaa waxa la gaarsiin karaa baa lagu leeyahay ma soo bixin wali sharciga laakiin waa sida mataqana ay leeyahay waxa la gaarsiin karaa ugu yaraan 30 daqiiqo in la nasto maxaa la isku maawelinaya waxa lagu leeyahay markii 30 daqiiqo inta la isku maawelinayo heesa iyo waxaasa la sii daari doona oo garoonka dhexdiisa fanaaniina imaanaysa ciyaar walba heesa loo sii daaraya 15 daqiiqo hadartan caalamiga ah waxa weeye waa laga badinaya waqti dheeraada baa markaasi laga dhigaya oo ilaa iyo 30 daqiiqo in la gaarsiiyo baa markaasi laga yaabaa ninkii macallimu Olonso ahana wuu cabaadaya wuxuu leeyahay waa ogahay inay meeshan tahay meel aad u daran oo pressure miran laakiin sidaas oo ahaataba waxaan rabaa inaan tuso waxa aniga galo Barcelona mar dhow soo gali rabtaa waxaba mataqaanaa ciyaarteeda ay haatanba ay bilaaban rabtaa shaxdaan ay ku soo gashay caawa Bedri Rooney iyo Eric Garcia qadka dhexe lagu soo bilaabay waxa la yiri ninkii Rafinha ina soo ayaantaan oo dhan dheelaysay Baldi ina Gerard Martin iyo Kubarsi baa qadka dhexe oo daafaca dhexe wada dheelay Kundana geeskiisu taagan yahay waa Yamal Rashford iyo Ferran Torres Lewandowski Rafinha iyo Keed baa loo dhigtay caawa waxaana leeyahay kulanka wuxuu noqonayaa kulan aan ku nasataan saaxiibayaal wuxuu ahaa gunaanadkii iyo ka daba geeskii ciyaarihii haatan dhacay wax walba soo baxana barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan salaam calaykum